الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. مقعيق هو جامع أحمد أوغلي أو كو مقع دير عانا بوري waxaan joogaa ku suganahay maanta magaalada Ciilifweyn ee gobolka Sanaag. maanta waxaan halkan ku hayaa maanso cusub oo la magac baxday shacab oo dan taagaro. waxaan filayaa inay magaca ka garanaysaan ujeedada maansadu xambaarsan tahay. shacab oo dan taagaro waxay ka hadlaysaa wacyiga maanta jira ee taagan haday tahay qabyaalad oo aad moodo in ay dibboorka looga tumay oo dadkii ama kuwa wax bartay ha noqdeen ama kuwii kaleba ha noqdeene hadeerto aan wax kale lagu hadaaqaynin. haddaad u fiirsato telefishinada idaacadaha iska daa rag iyo dumarkii baa taagan oo le anagoo reer hebel ah. marka waxaad moodaa in dib loo noqday dadkii, waxaad moodaa in la kala yeeshay oo niman kan aad mataqaana dadkii siyaasiyiinta ay xerooyinka la gashadeen oo dadkii aanay ku xisaabtamaynin qof walba maxaa adiga ku dana iyo isku dabaqad tihiin iyo isku hadaf tihiin. macnaheedu ay ujeedadii noqotay siyaasiga reer hebel in reer hebel raaco. hadduu saxan yahay waa la raacayaa, hadduu khaldan yahay waa la raacayaa. marka kolley dee gabayga tafaasiisha ku dheeraan maayo. gabayga ayaa dee fasiraya waxa ujeedada iyo hadafka aan gabayga ka leeyahay. kolley waa wuxuuna aan isiri kolley dee aan biday wax sheeg iyo waana inay tahay. marka bal maansadii aan bilaabo. waxaan idhi maansadu mar waa dacar dagaal ooga tiriyo damaq iyo larkiciso dadka la isku dirayo dambi lagu kasbanaya. maansadu mar waa deeq waa dood iyo wax sheeg iyo danta lagu tilmaamo duco lagu helaya. ansataydu waa dahab waa daacad iyo talo damiirkaygu keeno duunyo laygu siiyiyo darajiyo xil kuma rabo dan baan mooday waanada. dulucdiiyo ujeedada haddaan hoos u daadego lixdankii dadkaygow markii daalinkii tegay waa ingiriiskii markii daalinkii tegay ilaa doorkan maanta ah dadka waa la dhibayo danaystiyo siyaasa isu daba maraaye goormaa la degaya. dadow anigu yaabaye dalku inuu hagaagiyo yaan dowladnimo rabin, yaan daacadnimo wadin, dulmigiiyo xumaantiyo dagaal yaa ku faa'iida, yaan nolosha doonayn waxaan dumina mooye waxaan daynayaan baran. waa su-aal dadkaygow maxaa loo dagaalama? dowladdii siyaad iyo daraawiishtii lagu nacay maxaa danabadeennii da'yartiiyo caruurtii duqadeennii loo dilay? duunyadaynu dhaqaniyo maxaa daaraheennii loo dumiye waagii? dagaalkii iyo dhibtii shalay dayicii lasoo maray danta laga lahaa iyo dulucdii iyo ujeedada madadaan ogeyno degaankeena joogo dool ku soo galaa jira. mahmahduuga baa tidhi damqashada xanuun kale umushaa dareento dib u qoomamooto misna maalma dabadeed dacartii ilowdee damaqi miyuu baay. halkaa waxaan uga jeedaa wax kastoo dhib dadku soo maray dagaal iyo burbur iyo baaba la soo maray waxaad moodaa hadda in la ilaawo shacabkay ilaaween. qolada yaryar hadda soo kacdeen de iyagu may ogeen oo way yaryaraayeen. kuwa waaweynaa waxna siyaasiyiinta weeyaan waxna waa inta kala raacday. dadoo idin su-aalayay dulmi ruux tirsanaya marka uu dagaal tago hadduu deercadkiisii dirqi iyo xanuun iyo doondoon ku soo helo ma inuu daryeelo daalinkiiyo waraabaa dayr uga xidhaa wacan, mise inuu dayaco oo halkii shalayta lagu dilay ku dabaalabaa wacan? waa su-aal dadkaygow. nimaan kaa da'weyneyn darajana ku dheerayn diinta kaaga fiicneen hadduu kuu durbaantumo siyaasigu dacduu rabo sida dunyo xoolaad hadduu kuu dareersado damiirkaaga ruux kale
hadduu diiradda u sido sida darawal kuu wado, sida daabgudmeedkii kugu diiro nabadii, dubadhagax sidiisii kugu dumiyo xeerkii, sida jeedal daabacan dadka kuu adeegsado, sida dibiga beeraha ku dulmariyo kuu rabo, sida dabinka kuu xidho dibindaabiyo kugu falo, sidaa tahay damiin falan dusha aka kuu sidho, dariskaaga kugu diro xididkaaga kugu dilo. duroomiya haddaad tahay dabka xaabo lagu shido degelkiisa lagu gubo, dulmiga iyo xumaantana ruuxaan ka dirina daafacayaa tahay, waxba aana doonayn waxba aana diidayn, dib u socosho mooyee dowlad lagu badhaadhiyo daryeelayaad ka sugaysaa. diinkii god buu galay goray buu godkii galay, goraygii god buu galay diin buu godkii galay, deeroy dantaadii maystaba wareegba. berigi ciyaalka lahaabaa waxaa la odhan jiray diin godgal goray ciyaalka lagu lagu xijin jiray. hadda waxaad moodaa shacabkii iyo siyaasigii bayna noocaan noqdeen. siyaasiga waad arkaysaa maanta xil buu hayaa, xilkii baa laga qaadayaa, xisbiganuu gelaya, berituu ka baxaya, kuu shalay caayaybo maanta ammaanaya, kuu shalay ammaanayabo maanta caayaya, dadkii ka hadhi maayaan, isagii bay daba socdaan. wixii mataqaana hadba meesha uu la galay la gelayaan. macni dadkii markaa waxay noqdeen dad ninkaa siyaasigaa daba joogaan, hadaf iyagu ay leeyihiin iyo mataqaana aanay jirin bay noqdeen. murtiduuga ahayd baan diiwaan ka eegay, wax la yidhi dadkaygow, halkan waa sheeko dhaqan. wax la yidhi dadkaygow degmo waa shiraysaa la bariga dabadii shiikh noo ducee tidhi. markaa la bariga dabadii bay shiikhow noo ducee, shiikhii baa ducadii bilaabay. wuxuu yidhi dulqaadlow daayumow ilaahow waa docor colaaduye, nabadaan ku dararo degaankayga caam ku ah, deeqdaada nagu si. nabad buu shiikhii ku duceeyey. ninbaa dood ka keeno nabadaasi damaqdo degto qoriga laga rogo, dani kuma jirto yidhi. ninbaa iyo war aniga nabadda daniguma jirto. dadkii baa la yaabo, wax la yidhi maxaa daran, war maxaa nabadda ku diiday baa layidhi. wuxuu yidhi dan sheegtaye birta la isku dooxiyo daabacdiyo fallaara ninka daabacaan ah, haddii nabad la doorbido miyaan dollar helayaa buu yidhi, waa anigu hubkan sameeyaa buu yidhi. haddii nabadi dhacdo dadku ay heshiiyaan shaqadeedii waa joogsanaysaa, markaa dee daniguma jirto nabadda. shiikhii dan uga baydh, ducadiisii sii waday. shiikhii dib ducadiisuba iska wata. wuxuu yidhi dulqaadlow daayimow ilaahow cudur baana daashay caafimaadna deeqsi. maad caafimaad buu ku duceeyey. nin kalaa ka darayo ducadu isla noqdo shiikhow ka daayidhi. dadkii baa la su-aalo, wax la yidhi maxaa daran, war maxaadna ku diiday caafimaad haddii lagu duceeyey. wuxuu idan sheegtaye waxaan ahay doctoor weyn, cudurrada dabiibo daaweeye aadmiga, haddii cudur la deersho xanuunada dabar jiro miyaan dollar helaya buu yidhi. war anugu dee caafimaad baan ka shaqaystaa iyo dadkan daweeyaa buu yidhi. haddii caafimaad dadku wada noqdo shaqadeedu waa istaagi buu yidhi. shiikhii dan uga baydh, ducadiisii sii waday. wuxuu yidhi dulqaadlow daayimow ilaahow abaar baana dubato, waa halis dadkiiyo dunyadii dhammaataye, dalka noo barwaaqo ku duceeyey shiikhii markii saddexaad. nin kalaa ka hadlay, nin kalaa ka darayoo doodooda ka keeno doog iyo barwaaqadadani kuma jirto yidhi. dadkii baa su-aalo, wax la yidhi maxaa daran. wuxuu yidhi degmay maqal, dan yar caydha baan ahay, duunyana ma foofsado, duurjoogta kayntiyo digirinkan ku noolahay, marka deer la waaye dhulka deegu ka engago, damalada caleenta leh laamahan ka diiraan ku dugaa ugaadhee, haddii doogu siman yahay deeradiiyo sakaaradu daminimo geliyaan buu yidhi. anuu geedka barwaaqada baan laan yar ka soo gooyaa, marka dhulku abaar yahay baan abaarta dhigaa, dabeedna sakaarada ku khiyam sakaarada gasha. haddii roobdo dhulku barwaaqo wada noqdo dee deeradu dabankii way ga xumaanaya, marka halkaa waxba daniguma jirto. saddexdaasi kala daran. mid waliba dantiisuu dusha guud ka eegee, nin waliba dantiisuu dusha sare ka eegee, danta guud u xaalin. bilaa calaykum siyaasigii maa nooca ahayn. haddii isagu maalinta uu xil waayo waxa weeyaan ninkaas waxa weeyaan wax ka degaya, dalku qasaya. maalinta xil loo dhiibo macnihii xisbi kii shalay caayibuu ammaanaya, macnihii isagu dantiisu raacaya, dadkiina isagay daba joogaan. ama sax iyo khalad ku doona ha noqdee, wax kaloo hadafay leeyihin ma jirto. waxaan uga dan leeyahay inta shacabku doqon yahay, duqaadkoodu maran yahay, danugoodu xuma yahay, dabuubtoodu cay tahay, dursooc la isku raaciyo, dugsashadu qabiil tahay, dalqa waxa la marayiyo, doonistoodu lacag tahay, dookhuna hunguru yahay, doodoodu been tahay, dacwadoodu eex tahay, dekanooyin hore iyo dulmi la isku jarayiyo, dagaalkoodu hiil yahay, derajada la gaadhiyo, dallacaadu qolo tahay, abtirsiintu diin tahay, reeraha la dayrshiyo, laangaabku doqon yahay, danyaraantu cay tahay, xornimadii la doontiyo, dadaalkii la soo galay weli waa daldalanta, waxba kama jiraan.
wanka daabixee weyn wanka daabixee weyn ilaa gowrac loo diro degta ciid indhihiisu daymada cirka daahan marka ujeedada wan ilaa la gowraco indhihiisu ciidda markana baa mahmaahdahay qofku waxa marka uu waayo dareema hadda maanta nabadgelyo haysanaa dadkan iyo dadku ma daraasan nabadgelyada nimcada in yar baa daraasan oo wax garanaysa inta badan ma daraasana laakiin maalinta la waayo nabadgelyada ee colaade dhacdo in qof waliba ilmihiisa sidii berigii dhacday uu ku qaato afka baa qof waliba dareemaya nabadgelyadu iyo wanaaga ay lahayd caafimaadku marka la waayo xanuunsataa la dareema tijaarada marka faqrigu ku asiibo baa la dareema marka waa sida wanka daabixee weyn ilaa gowrac loo diro degta ciida loo daro indhihiisu daymada cirka daahan ma arkaan dadoo idin su'aalaye hidihiyo dursuucii dhaqankeena diidno diintiisa luugne dastoorkii la soo qoray ma dabiibay boogtii cadliguna ma daahiray dadku ma u sinaadeen dibidaabyadii dayicima laga baxay dastoor baynu qorannay baarlamaan baynu samaysanay guurti baa la sameeyey hal ugu kala dambeeyaa la yiri wixii horta la soo qoray dhaqankeena hore geedka hoostiisa iyo qabiilka lagu kala bixi jiray baynu maaligna waa ka tagnay wixii la soo qoray ma lagu ladnaaday oo horumar ba keenay oo ma lagu kala dambeeyay mise way ka dareen horta taa qudheeda in la su'aalo baa muhiim ah qabiilkooda duugiyo dadkoo caafimaadaan durbaanada u tumaye dimuqraadinimadii miyaa lagaga sii daray soo inagan darjiibnee dure iyo sabaan hore dariiqii la soo maray raadkii dib loo guray baktigaynu duugnee dar ilaahay loo nacay qabrigan ku duminiyo yaa dooxay ilkii dadkaygow qabyaaladii markay duurka joogtay sida dowladoo kale lagu kala dambeyn jiray markii geedka darayga ah dubabka iyo suldaanadu dadka ugu warnaqayeen markii reer haystila dawal looga dhigaya inay kala dareeraan dumar godobta reebiyo diye laysiin jiray magta lagu dabiri jiray ayay doorkan dhaantay dhaqankii ayaa duway dumarkii iyo caruurtii ayaa daramalka u tumay shaqadii ragga u diray da'yartii waxbaratiyo dhalintii ayaa duway dadka wada hadlayay bahashu markii dibadda aynu joognay ee odayadu iyo dawaayeelka iyo cuqaashu dadka u garnaqayeen lagu kala saarayay sharaf fadhiid markay magaalada soo gashay maalin walba waxaad arkaysaa shaashadii waxa taagan raggiiba iska baday hadda shaqo dumar baa taagan hadaanu reer hebelnahay dhalinyarada wax baatay jaamacadaha ka baxay baa halkan toban marka waxaad arkaysaa in bahashii berigii hore la casriyeeyay sidii hore bay ka sii xun tahay dugsi mala qabyaaladii duqeetii macadaayidi ana waan daliishaday inay tahay dilaa weyn aydiska la deershiyo daacuunka xoog badan mahmahduuga baa tidhi wax la yidhi oo mahmaaho sian weyn iyo inan yar ayaho 3 jir iyo arigo iyo inankeed yar ari la joogay ayuuto 3 jir bay timaha doonaysa in iska rifto timuna wax xanuun meeran markay tin iska goosado la wada maqata bay tiraahdaa inankii yar caruur uu yaabay saanta ya dilayay harweego dabadii wuxuu yiraahdayo adiga istilayste mahmahduuga baa tidhi duqayeeyo gaadho duudkeeda tiba baxay iska daadinaysa damqashada xanuunkii codkeedii dabayshaday wiil yar oo dul jooga daymad hareeraha ayay cidilayso durqomaysa garan waa dabadeed ku yiri ciid adiga istilayay ayay istaadi murtida aan door biday waxaan uga dan leeyahay adiga istooxay shacab oo dan taagaro wax la yiri dadkaygow dawacadu xoolaha khiyaab ku daaqda docdakii u bareeday cunitaana looda duurka joogtana dugaag markuu ku soo baxo haday didiba waayaan dibaduna ilaashaan ugu daacuflaha weel quramo dooxeen oo daribka macantuugeen idinkuna dadkaygow haddii aadantiin iyo dar allow midowdaan dariiq urana qaadaan daacadnimo ku shurugtaan dekanada qabiilka iyo dirsooca iska daysaan dilaalka iyo tuug iyo danaysiga siyaasigu babinkuma dhigi karo rabbiyow daryeelka dulqaadkaaga wacan baan dalka iyaga ku joogno doombir baan lahayno nabad baan dugsanayno dadka qaar ku dhaafnaye rabbow yaanu naga dumin rabbow goostambeedkiyo carabka isturquma oo laba hooyo dihataa istagaali kara oo dadka meel ku wada nool doodi kama dhamaato aadmiguma daalee rabbiyowna daba qabo dulqaad loo miskiin iyo danyar aan waxayn iyo duqay iyo dhalaan iyo ducufiyo agoonbaa degelkaaga joogo dadka qaar wanaag iyo diintaada jecel baa masjidada digriyayo duco kugu baryaayee rabbow nabadna deeqsi kuwa aan ku kala dudin daacadnimo ku wada nool
dadka wada ilaashada dan wadaag isjecel iyo degmana wada nagaya rabbiyow dad baana ilduuf baan la derisnahay annagoo dadaalnaan darjiidnaa wanaagii wax ma dooran karaynee adaa doori karayo dadka kala yaqaanee midun diinta nagu dhaqa shacabkana u daacada duunyana aan naga dhaqan rabbiyow adigu noo door rabbow labada daarood adigaa dalleeyo dunidaada taago dijaalka iyo ibliiska iyo shadaadiinta daasho nafta damac ku beeree dunuub waayi maynee dembi dhaaf allahayow deeqdaada nagu sii